إسرائيل أو وضع قرشة أي شيء يسو إن عيدا فربضان أي دون يسو إن كويررتو مقالة غزة هذا تلفزيون الجزيرة أيا وحلياي عيدا مضى إسرائيل وحي شيغان إني بلابين ساعده قدام بيي ويرر قرشيسان أو أي كو قاضيان أو كراعيسة مالك لدوان si ay markaa u qabsadaan dhul fara badan oo markaa ka tirsan marinka Gaza haddaba wararkan waxay sheegayaan in weerar cusub ay Israa'iil qorsheynayso oo ballaaran inay ku qaado marinka Gaza oo ciidamo dhulka ah ay ku weerarto si markaa hadafku uu u noqdo hadafkooduna uu yahay inay soo badbaadiyaan oo ay soo xoreeyaan dadka maxaabiista ay la haysto iyo inay kala furfuraan nidaamka Xamaas ee maamula marinka Gaza marka waxa leeyahay Israa'iil maalmahan duqeymo aan caadi ahayn oo arxan darro ah ay ka wadaa Gaza maalin walba 100 ku dhawaad qof dhimanaysa qaar badan way dhaawacmayaan iyadoo taa meesheedii ay taalo ay haddana cunaqabatayntii ku haysaa wax raashina oo galaya ma jiraan wax dawaa oo galaya ma jiraan hay-adihii gargaarku way qaylinayaan 7 dowladood oo Yuruba ayaa shalay war soo saaray leeyihiin Israa'iil waa inay wax ka bedeshaa sida ay dadka kula dhaqmayso Israa'iil marka iyadoo luqadaas maba dhageysataba dowladaha Yurub hadday iyagu wax geyn karaan wax xageeyaan laakiin dadkoo dhan way wada hadlayaan waraa la wada bas kuwii carabta waray wadaan kuwii Yurubiyaanka war wax Israa'iil la hadli kara ma jirto marka hadda waxayba ku sii dartay waxa leedahay ciidan aan meel kasta isaga keenay ayaan markan waxaan rabaa inaanu kala baxno annaga iyo Xamaas afarta dhinacba ciidana inta ka geliyo ama xabiista soo furto Xamaas ka takhaluso saasa waa nagu dheeraatay dheheen baashaan waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno Gazaa'adan ciidan xataa waxaa la soo celiyay madalliyiin leeraado oo ay u dirtay Suuriya waa la soo celiyay kuwa daanta galbeed ku jiray waa la keenay kuwii Lubnaan xuduudkeeda Xisbullah la dagaalamay waa la soo bixiyay kulligood hadda waxay soo keentaa lagu leeyahay Gaza waxay rabtaa inay gasho marka taa waa mid iyada ay rabto laakiin dadkii wax falanqeynaya maxay raadeen General Faiz Ad-Duwayri oo weerarkan ay qorsheynayso Israa'iil wax laga weydiiyay wuxuu yiri weerarkan Israa'iil uma fiicna reer Gaza uma fiicna sababta uu reer Gaza ugu fiicneen ayuu ku hormaray wuxuu yiri reer Gaza waa dad maartay dhibaato ku jira hadda marka in weeraro cusub dagaal cusub haddana taangiyo garaacaan diyaaradaha awal qaati ka joogeen waa iska dhibaato dhibkooda sii kordhaya laakiin wuxuu yiri iyaguna uma fiicna hadda diyaaraday ku dagaalamayaan laakiin dhulka imaanayna maalinkay dhahaan gacmaha la isku tagaayo nimanka kan dhulka ka buuxa ee Xamaas ee hubkooda haysta ee meel nimanka ka gaaraan weysna hadday yiraahdaan Gaza dhanaan soo wada galaynaa waa iidooda waxa laga baqaa uu yiri inay askar cusub ka qabsadaan iska dhaaf inay ayaga wax soo furtaan laakiin wuxuu leeyahay iyaga laftirkooda kuma degdegi doonaano afka baarkiis waaye waa saasa sameynayna hanjabaad leh waaye laakiin hadday dhulka galaynaa dhahaan oo ay ku soo yaacaan waa maalinkii gacmaha la isku tagi lahaayeen meeshaas nimanka muqaawamaduna waxay rabaan inay nimanka sida u soo gaaro duqeyntii koraa ka yaraanayso yiri duqeynta kore ayaa yaraanaysa ciidankoodii mar hadduu gudaha soo galo de ma duqeyn karaan marka kuwan ciidankan infantryga marka la isku cabaya marka wuxuu yiri nimankaasuna alaabtaasi marka aad u sugaayaan marka sheeko la yaab leh ayaa halka ka socota wixii warara ee arimaha ka soo kordha waan arki doonaa dhanka kale maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa leeyahay waxay wadaan qorshe ay milyan qof oo Falastiiniyiin ah doonayaan inay ku dejiyaan wadanka Liibiya haddaba aanad soo jirada leeraado Al-Quds ayaa waxay qoraysaa telefishinka Mareykanka ee leeraado NBC News ayaa wuxuu sheegay in maamulka Trump uu ka shaqeynayo qorshe lagu rarayo milyan qof oo Falastiiniyiin ah oo lagu dejinayo Liibiya haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay
washington wararka ka imanaya waxay sheegayaan telefishinka MBC News ayaa gelinkii dambe ee shalay oo Jimcaha wuxuu sheegay in markaa ay socdaan mas'uuliyiin maamulka Mareykanka ka tirsan Donald Trump oo ay wadaan qorshe ku saabsan sidii markaa dad gaaraya 1 milyan oo Falastiiniyiin oo hadda ku sugan marinka Gaza loogu rari lahaa Liibiya si weligood ay halkaa u joogaan bishaklin daa'im waay si daa'im ah inay weligood meesha u joogaan waayahay Liibiya maxaa looga bedelanaa marka Mareykanku muxuu rabaa Liibiya inuu siiyo dadka Falastiiniyiinta ee Gaza laga soo qaadaya si ma ogolaanayaan iyagu inay dhulkooda ka baxaan oo ay meel kale tagaan taas iyaduna waa wax kale laakiin asagu qorshihii uu wataa Liibiyaanku markuu wuxuu rabaa inuu kaga bedesho lacag bilyanis dollar ah oo bangiyada Mareykanka ku xaniban oo Liibiya leedahay ayuu Mareykanka ku xanibay isaga shaqaysta marka wuxuu leeyahay lacagtii aan idin fasaxi doonaa haddaad qorshahan iga yeeshaan qorshahan haddaad samaysaan oo dadkan 1 milyan meel ii dejisaan aniguna wixii lacag aan idinka xanibay bangiyada Mareykanka waa la idin soo fasaxayaa marka qorshihii weli ma lagu guuleysanin ma dhamaanin laakiin telefishinka MBC News ka la soo xiganayo ayaa mas'uuliyiin maamulka Trump arrinka ka soo xiganaya laakiin waxa leeyahay nimankan iyagaan ba yeeleen ba Falastiiniyiin inay dhulkooda ka tagaan oo macnaha hadayba baxayaan mar hore bixi lahaayeen marka sheekadaas iyaduna halkaas maraysa way isku qasatahay warkaas marka ka soo kordhay qodobka kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaka aan idinku hayo wuxuu yahay Israa'iil maalmihii la soo dhaafay waxay weeraraysay sida la socotiin Yemen gantaalay ku garaacaysa saaki marka waxa soo baxay war la leeyahay gantaalihii kala bar maba qarxinba ilaahay awoodiis waxa gantaal ay rideen maba qarxinba qaar badan oo kamid ah markaas maxay sameynayaan nimankii xootiga ahaa niman khubaraha inta keensadeen ayay gantaalihii qaadanayaan godadkooda iyaguna la aadayaan way soo habaysan waa mid hadda Hamas ay samayso oo kale bambooyinkoodii ay soo rideen iyo gantaalihii oo aan qarxin inta dib loo mudufikeeyo ayagii lagu garaacaya marka nimanka kanuna gantaalihii arursanayaan waxay ku sameyn doonaan lama yaqaano ma asagii dib ugu celin doonaan ma furfuran doonaan ma khibrad ay ka qaadan doonaan lama yaqaano haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera oo goordhow warbixin ka qoray sheekadaas wuxuu leeyahay waxay soo bandhigeen muuqaal iyagoo soo saaraya gantaalo aan qarxin oo ku dhacay meelo kala duwan sida airportka Sanca ee caalamiga ah kaasoo markaa la sheegay Israa'iil weeraradii dhawaan ay qaaday Yemen inay markaa gantaalahaas ay ahaayeen marka sida arkaysaan gantaalaha marka waa kaas inta wiishash u keensadeen gantaalihii la soo baxeen rag khubaro ah keensadeen ayay gantaalihii sii wataan way qaateen marka sheekadaas halkaas maraysa waxayba taagan yihiin ilaahay yaaba noo keenay qaniimo oo annaga aanan marka filim boy gantaalka anaga in la ku dilo la rabay waxa ballan ay leeyihiin in ayaga ku dilno sheeko walaal meesha ka socota qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa Netanyahu baqdin uu ka qabo in la xiro ayuu uga baaqday leeyahay xaflad barita ka dhici lahayd wadanka Talyaaniga oo lagu calay masaari lahaa boobka ama wadaadka ugu sareeya diinta Kirishtanka ee Katoliga oo dhawaan la doortay